بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإلهي سبحانه وتعالى ما هذا اسكالك انتي للدونة ورنتي مارتي قفك مسلم كمرول بوحلو باهي مارتي إنه إلهي سبحانه وتعالى نعموين كيسا إنه فهمه وكشكريه إنه إلهي سبحانه وتعالى وزيادين نعموين كاس يقول نقطة دائما. marka maanta waxaan rabay xoogaa yar in aan xoogaa aan wadciga muslimiinta oo mar walba dhibaato badan iyo waxyaaba badan ay sii jiraan in aan aan waxaan ka niraadno ummadan dhibka haysto ama maradka haysto meesha uu ka yimid ama waxyaabaha ugu sababay yani maradka ummadda ku dhegan runtii dadka muslimiinta ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin. qofka marba hadduu iimaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay oo ugu bishaareeyo inuu noloshaan oo ku noolaado nolol sharaf leh oo cizo leh oo karaamo leh oo nolol fiican inuu ku noolaado qofka mu'minka ah. laakiin waxaan arkaynaa dadkii muslimiinta ah oo zamankan ku nool in ay dhibaato weyn ay haysato oo yani ummado badan amba shucuub badan amba yani dad badan in ay ku nool yihiin xaalado aada iyo aada u liita oo keenayso in ay gacanta uhoorsadaan dadka kale, in iyaga ay u baahdaan in loo kaalmeeyo, in iyaga dhexdooda marka ay iscolaadiyaan oo isdhibaan oo masaa'ib badan ay soo gaarto. marka ummadda dhibkaa gaaray amba mustawaha heerkaa oo aada iyo aada u liita oo dhibkaa ku habsaday ummadii, marka maxaa keenay in ummadda mustawaha ay gaarto. runtii cawaamil badan ayaa iskaashatay oo keentay marka ummadii inay mustawaha hooseeyo inay gaartay. cawaamisha waxaa kamid a cawaamil oo daakhili ah oo yani iyaga dhexdooda muslimiinta dhexdooda wax ay laga helay, iyo cawaamil khaariji ah oo dadkii marka muslimiinta ka baxsanaa oo muslimiinta aan ahayn oo dhibaato muslimiintii ku hayo oo asbaabaha qeyb kamid a iyaga xambaaraya. marka cadowgaas banaanka joogo ma najaxayo in uu muslimiinta dhib u geysto oo heerka uu gaarsiiyo ma najaxayo. ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ka cabiray dadka muslimiinta kaydka u wado oo dhibaatada ku wado oo la dagaalamayo oo yani cadow ku ah, yani dhibkooda wuxuu ku tilmaamay wax aada iyo aada u yar oo xagasho oo kale. يعني لن يضركم إلا أذى وإبير أو مشاكل عن العين. لكن إذكر مسلمين إيه لحظة كحصلة بسبب إيه من عند أنفسهم، يعني السبب إيه نفط إيه كانت إذكر سيئات ياد مصدقي باوين وجالسين كرو هير كجالسين كرو. تاريخ هذه أنفير إنه dadka muslimiinta ilaahay subxaana watacaala iyaga oo cizi leh oo sharaf leh ayay ku noolaayeen zamankii khulafaa urashidiin dawladihii kale ka dambeeyey ilaa hada mustawama. laakiin markii muslimiinta dhexdooda laga helay cudurkan oo ah alfurqa, in iyaga ay kala babaxaan oo iyaga ay iska soo horjeestaan, iyaga ay iskhilaafaan oo isku khilaafaan umuurahooda diinta ah, يعني أي عدو يسكن نقدان أو فرق متناحر أي نقدان. واحد كانت إن عدو برنامج هاجري كجابي أو كأمسنا إنه كسود دوله ووضن كله قبضه إلى عاصمة الإسلام كأيد بغداد هيك أي صوب جلان أو مسلمين كي لقلقلة أو لدلدلة أو إلى هير أو إيجاران نكا تتاركه hadduu arko nin muslima oo leeyahay meeshan istaag waa baxa midiga kusoo qaadana ku qala meeshan istaag oo san ka dhaqaaqi karin.
يعني إلى هذا الحد مارتي عصيها، مع أنه مارتي ذكر سود ولي مهما كانوا عدد كودي أو دولي مارتي هدي وضد يرح مغالي كسو الدولايان ومغالوين ضد بدنا الدقل ماشي ويساعدين كران أو وحكا سيكو سمين كران أو إلى هذا المستوى يسين جارسين. لكن واحد كان أنت صحيت ضعف إذا مارتي الداخلي بقى ومارتي مستواها الجاري وإنه وصلوا هيد مسلمين تي إن أي مارتي kala baxbaxaan qaarkood cadowgii ay la soo saftaan oo ay soo geliyaan ummadii muslimiinta ah. cudurka labaad oo muslimiinta maaragtay runtii maaragtay haysto oo maaragtay ku dhegan oo waxay tahay maaragtay dadka maaragtay culimada ah oo doorkooda aan kasoo bixin. dadkii maaragtay diinta ilaahi subxaana watacaala uu baray oo ugu talagalay ummadda inay maaragtay xaqa u sheegaan xaqii aan si fiican ugu gudbinaynin oo markaa maaragtay adduunye ka doortay xaqii oo la saftay markaa maaragtay dadkii dhaalimiinta ahaa ama dadkii maaragtay faasidiinta ahaa ama maaragtay meelo kale ka baxayna oo markaa la helay dadkii maaragtay diinta lagu tirinayay qaar kamida in ay xaqii ay ka aamusaan aysan sheegin xaqii ay maaragtay si kale ay ufasiraan ay maaragtay dadkii markaa maaragtay muslimiinta ah maaragtay dhib weyn meesha uu kasoo gaaray oo la waayay dad culamaa oo rabbaaniyiin ah oo ilaahay subxaana watacaala ku xiran oo aakhiro u muuqato oo maaragtay istaagsan maaragtay mowqifkii nabi maxamed caleyhi salaatu wassalaam. alculamaa warasatu alambiyaa, nabiga caleyhi salaatu wassalaam waa aakhiru alambiyaa oo maaragtay nabiyaalka lagu khatimay oo nabi kale ka dambeeya ma jiro. nabiga markuu caleyhi salaatu wassalaam u dhintay culamada ayaa waxaa loo baahan yahay marka mawqifka inay taagnaadaan oo dadkii xaqii ay gaarsiiyaan oo xaqii aysan ku dooranin maaragtay shay min addunya. marka markii la helay dad culamo ah oo maaragtay xaqaas aan masilin iyadana waxay noqotay marka maaragtay cudur kale oo meeshii ummadii haysto oo maaragtay dhib weyn ku haysto. waxaa kaloo soo baxay marka maaragtay in maaragtay dadka musaqafiinta ah oo waqtiyadan dambe oo maaragtay wax bartay yani ilbaxay oo maaragtay oo loo baahnaa marka ummadoodii in ay maaragtay u keenaan wax alla wixii anfacay ay ka fogeeyaan wax alla wixii dhibka u keenayna ummadda inay ka xoroodo cadowgooda jahligii faqiirtinimadii maradkii waxyaabihii inay ka xoroodaan. marka dadkii loogu talagalay oo nuqbadii ahaa oo musaqafiinta ahaa maaragtay ayaa waxaa maaragtay waxay noqdeen dad maaragtay maadiyiin ah oo madaahibta maaragtay diinta ka fog inay ummadda ay u keenaan oo ay dhexgeliyaan oo ay maaragtay ay ka horjeestaan dadkii ducaadda ahaa oo saalixiinta ah oo maaragtay ummaddii hagaajinaya waxyaabahana. marka in ay dadka musaqafiinta ay la taxaalufaan marka cadowgii banaanka jiray oo ay maaragtay ummaddii marka ay usoo jiidaan madaahib maadiya ubaxta oo dhib ku keenayo oo maaragtay diintii ka fog oo fasaadkii akhlaaqdii maaragtay ummadii marka ay maaragtay ku xiraayo cadowgii ku xiraayo oo maaragtay halkaa ka bixinayo. marka ummadii waxaa iskugu kaashtay maaragtay barnaamijyo maaragtay ideolojiyaad waxyaabo oo maaragtay ummadii dhexdeeda lagu fulinayo oo maaragtay ay fulinayaan dad muslimiin sheeganayo ama dad maaragtay musaqafiin ah oo maaragtay rabo in ay ummadii marka ay dhexgeliyaan maaragtay madaahib oo maaragtay diinta ilaahi subxaana watacaala aan waafaqsanayn oo ummadii marka waxaa ku wado oo ay soo baxday marka dad maaragtay wasaa'il iclaamkii wasaa'il tacliimkii muasasaadkii tacliimiga ah iyo muasasaadkii iclaamiga ah maaragtay muasasaadkii maaragtay jawaanibtii ta'siirka ku lahayd mujtamaci oo dhan ay haystaan dad maaragtay diinta ilaahi subxaana watacaala maaragtay aan u hogaansanayn diinta ilaahi subxaana watacaala ka fog oo marka maskaxdooda ay ka buuxdo waxyaabo kale oo ummadii marka maaragtay ku hogaaminayo balaayadaas ku hogaaminayo. marka ninkii muslimka ah maaragtay wuxuu arkaa dadkii muslimiinta noloshoodii waaqicoodii in uu ka fog yahay ilaahi subxaana watacaala habka ugu talagalay. munkaraadkii ayaa banaanka yaal, fisqigii ayaa banaanka yaal, maaragtay qishkii ayaa banaanka yaal. qishkaas ha noqdo qish tijaari ha noqdo ama qish oo maaragtay iclaami ha noqdo ama maaragtay
dhan kasto ayaa maarata waxaa fiday marka maaragtay beenkii iyo waxyaabihii iyo maaragtay dilkii isdhacii maaragtay musiibadii oo dhan ayaa dhinac kasta ka fiday oo muslimiintii marka ay ku sugan yihiin maaragtay aan garanaynin xataa maaragtay meesha looga soo socdo qofkii asagoo wadankiisa ku nool oo maaragtay ayuusan aamin helaynin in uu ku noolaado maaragtay nolol fiican xalaal uusan maaragtay heli karin amba maaragtay yani naftiisa xataa maaragtay halis ay ku jirto in ay dhibaato ay soo gaarto marka qofkii waxaa yani waxyaabaha makhaatirtaas badan oo ummadii marka maaragtay dhinac kasta ka jiidatay oo maaragtay iskugu kaalmaysatay in ummadda mustawaha ay gaarto maxaa looga bixi karaa waxay tahay maaragtay in ummadaas ay u noqoto ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa ummadaas in lagu fidiyo fahamka saxiixa ah oo ilaahay subxaana watacaala maaragtay diintiisa maaragtay ugu talagalay in dadkii ay fahmaan ilaahooda ay bartaan qiyaamahooda ay bartaan ay isku diyaariyaan maarata qiyaamihii ay isku diyaariyaan adduunkooda marka ay ku dhisaan maaragtay mucaamalada ilaahi subxaana watacaala ugu talagalay cibaadaadkooda saliim inay noqoto mucaamalaadkooda iyo waxyaaba ay kala gadanayaan iyo noloshooda ay noqoto wax saliim ah oo ka fog wax alla wixii munkar ah oo ilaahi subxaana watacaala sharcigiisa ka fog iimaankooda maarata qiyaamaha ay rumaysan yihiin ay noqdaan iimaan raasikh ah bimacnaa maarata iimaan xaqiiqi ah oo noqdo qofkii malamala aysan ka noqonin aakiradii ninkastuu ujeedaa in uu dhimanayo oo ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa uu ku cadeeyay in maarata lasoo bixin doono laisxisaabin doono oo maaragtay janno ay jirto naar ay jirto oo ogsoon yahay laakiin macluumaadkaas ayaa waxaa loo baahan in loo bedelo wax maaragtay qofkii ku bixiyo qalbigiisa in uu maaragtay uu dareemo arrimahaas iyaga ah oo markaa uu is ogaado in la xisaabin doono in la ciqaabi doono in laga abaalmarin doono afcaashiisa iyo aqwaashiisa marka wacyigaas noocaasina wuxuu u baahan yahay marka in la helo maaragtay camal daa'im ah bimacnaa maaragtay nin kastoo muslim ah oo qalbigiisa khayrkaa ku jiro inuu dhaqaaqo waxaan arkaynaa maaragtay dad badan oo muslimiin ah oo nafteena kamid ah yani xaqaas laga yaabo qofki inuu jecel yahay xaqaas in uu maaragtay qalbigiisa uu ka murkisan yahay laakiin uusan dhaqaaqin uusan ka badnayn qofkii noloshiisa khaaska ahayd yani ummadii waxba uma qabanayo ummadii inuu dhaqaaqo oo xaqaas oo maaragtay uu dhaqaaqo maaragtay aan yeelayn marka qofka markuu dhaqaaq sameeyo oo dhaqaaqaas uu yahay dhaqaaq musmira bimacnaa ilaahay dartiisa u dhaqaaqo maaragtay ummadii badbaadi ugu dhaqaaqo oo maaragtay xaqaas maaragtay dadka bar ugu dhaqaaqo marka dhaqaaqaas waa dhaqaaq musmira oo timaar dhalin karo laakiin qofka hadduu iska dhaqaaqo biduuni hadaf biduuni ikhlaas biduuni maaragtay asagoo waxba maaragtay qalbigiisa aan maaragtay toosnayn dhaqdhaqaaqiisa ku noqonaya dhaqdhaqaaq aan faa'iido lahayn marka qofka muslimka ah kelimad markuu ku dhaqaaqo amba uu maaragtay wacyigelin markuu sameeyo amba ficil saxiixa markuu sameeyo intaas oo dhan waxay yeelanaysaa timaar badan ayay yeelanaysaa oo bay-ada asigoo ku nool yahay ayuu ka tarjumaya xaqii oo u tarjumaya markaa maarata wanaagii marka markii la helo maaragtay dad muslimiin oo saa u dhaqaaqayo oo juhdigooda bixinayo yani waxaa la gaaraa marka maaragtay takyiir ayaa dhacayo oo ummadii markaa isbedelayso xaqii markaa uu maaragtay uu fidayo xaqii markaa uu maaragtay uu booskii baatilka uu gelayo oo markaa baatilkii uu yaraanayo oo saaxada uu ka baxayo marka cuquushii iyo quluubtii iyo maaragtay nufuustii iyo waxyaabihii oo dhan ayaa maaragtay aamin noqonayo oo markaa oo xaqi ku degay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika lahum al-amn wahum muhtaduun marka qofka markuu dulmiga uu ka fogaado amaan ayuu helaa marka طمأنينة أيوه سكينة أيوه قلبي أيوه حسوق لا معرفة نلشيس أيوه دقيس أصلا أيوه كان نقنا من معرفة آدي نلش ونول ومعرفة آخرين كان جارين لكن مركي حياة الظلم وكل حجرهم نفتي سود منها عبادات إلهي وسن جزمين معرفة إني الشرعي وسن برمين حقي وسن شيرين حقي وسن دس أدر جارمين
ومركا أصلي أدلمي مجتمع أدلمي إلميس أدلمي ناسيس أدلمي جريسكيس أدلمي قفك مركا ظلمي أمره كل حجر وحوي أمني نميلا هداية نميلا مركا أمني ياسي هداية وحلويلة وحي تاي قفك مركا دائرة الظلم إنه كبر ظلمي وحا أوسري الشركة كفر أوسري وحا أوه سيسو مارتي قفكي مركا مارتي إنه أوامرك إلهي أو خلافه أو مركا أو سنكسر بحين واجباتك في وحابي ولو تلقى لو سنكسر بحين مركا نكسر مسلم يا مارتي السبع يا أمدا بدارين كرو السبع يا أمدا كفير في كرباطي كذا مركي دعوده استاغو حقه استاغو وحنا قلنا مركا قف مركا مارتي أمدي يعني بداوي سبيل كذا كجير لكن مركي دعوده وكي استاغو حقه وكي استاغو والسبع مركا مارتي أو يجيل كلية كتاي ويتمنى على الله الأماني وجعلها بس أسكلي يعني وحن جعلها ومدى بها هاي وكلام فارغ أنا قفك مالتي يعني وأجد ومدى هلاك إن يكون سبتها لباتوي إني جرت وأجد لباتو داس وحي مارتي لو بحك الرقيقة هذه هذه دقائق دي هذه هذا مارتي دائرة الظلم أكبح دي هذه بركة مارتي أوسعيسي إنه حقا مارتي أو بوسكيس أو قالوا بركة مارتي نوشي يسعنيسا حقي مركا ما روحوا إلى أنصار أيولا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم مركا حقي حلو بها قف إنه مالت أقرقار نفس هذا مركا ورئينا أو أقرقارتي هذه وضد إلهي إنا كتاقناتي أخلاق هذا إنا بدشي عبادات هذه إنا بدشي قلب هذا إنا النور هذه مركا مالت إنا نقصد من مستقيم وأول خطوة هذه تعالى هلو والله هلو صدح لهلو مارتي مجتمعي waxaa soo gaaray naxariista ilaahay soo gaarayso maartay nasri ilaahay soo gaaray tawfiiqda ilaahay soo gaarayso wadalka tilqaa'iyan oo iskaga zuulan markii la helo dad mu'miniin ah oo saalixiin ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiran laakiin qofka markii uu iska hadlayo kaliya oo leeyahay waaqic oo halaysan heblo oo halaysan dadka oo halaysan laakiin asaga isku mid yahay inuu asaga marka hore uu yahay yani xaqqa ninka ku soo horjeeda asaga inuu yahay هذه مركورة مارتي يعني دائرة باطل كصوبح دائرة حق صوبا هذه النقول من مركا مارتي حق أقبلي أو قاتي أو كتوسن أو مارتي حق مركا مارتي كدكتي مبدأ كدكتي مارتي اتجاه كدكتي يعني قنعي ومركا حق ذكي جارسين هذا قف جورجيس هل درس أن كجرين وإنيس حق أو شيء جينين ومركا مالتي يعني كاسو كله مفروض داعيكية يعني مركا أبيه هلو بهاي مالتي إن مالتي حقاس وأكتاد أوكوي نابي قيم أوكيش مركا مالتي إن مالتي بدك أبيه مركا مالتي أنت هذا كجر إن حقاس أو شيء جارسي هو مالتي منسي كدي مركا مالتي إن قطوع مالتي في ماذا هذا يعني شعار كذا محاضر هذا يعني هدف كذا ونقوله مارتي dadka ina khayrka la jeceshay oo dadkii marka ay jeceshay marka inay maartay khayrkaas ay qaataan baadilka ay ka haran marka qofkii marka wuxuu noqonayaa nin daaci ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadadiisa ugu yeero oo marka maartay soo tartiibtiisa oo buuq aan gelin dagaal aan gelin waxba aan gelin ayuu marka maartay dacwadiisa u gudana oo maartay oo la heli kara marka maartay dad mustaqiimiin ah oo ducaad ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiran marka qofka insaanka inuu daaci ila alkhayr inuu yahay iyo daaci inuu ila shar inuu yahay labada ka baxsan ma jirto qof taagan oo kana ma jirto hadaan xaq ducaadida aan ka bidhayd waxa tahay safka baadilka ayaa ku jirta oo baadilkii ayaa taageeraysa maxay xaq dacwadiisa maadaama ka aamustay ka gaabisay dhinacaas ayaa martay وأرين خطير يعني ولو باين قف مسلم كأمانة إن أو مارتي من حيث لا يدري إن أو مارتي أعداد إلهي الشيطان كاف سبيل الشيطان إنه كمن دغم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني مثلا هذا اصطلاح جدا وفي الشيطان عابد إنه إلهي عابد هذا إلهي عابد أظنه كان سنين شيطان عابد سنة شئت أم أبيت ما له أنا شيطان عابد أم هدينا ما أنا أشوف ديها سعاد متكوناي وكلمة شيطان عابد أكو جفتها إلهي ما عابدي والصلاة متكوتي والقرآن كما أخرجتي ودين إلهي ما برتي وكذا إلهي عابدين شيطان ما عابدي
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنت. الخوف عبادك حجرنا، إما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد الله. marka adiga labada wado kala doo inaan noqoto min ilaahay caabudo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala awaamirtiisa qaato oo wadada ilaahay qaado oo saa ugu socdo oo diinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala u gargaaro inaan noqoto min shaydaanka ku xiran oo khalaas marka qiyaamada masiirka waa taqaana marka لأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. marka inuu qofka marka maaragtay yani masiirkiisa adduunka waa wadadaas xaq ah umadan dhibka haysto mashaakilka haysto maaragtay waxa loogu bixi karaa waxay tahay adigii marka hore inaad baraarugtid, adigii inaad xaqaas qaadatid oo marka maaragtay aan noqotid safka maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku tilmaamay dadka mu'miniinta dadka saalixiinta xisbiga ilaahay uu ku tilmaamay maaragtay dadka uu ku tilmaamay maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala cibaadu raxmaan dadka uu ku tilmaamay marka sifaadkaas oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka saalixiinta uu ku amaanay inay kamid noqoto. لكن عباد الرحمن هذا مثلا عباد الشيطان نقول إنسان مثلا نول بمارك ومسلمة حبارو حقها سمارك وأرن ياد خفير ما يتقبل ليس مارك خفكي وفي ضعيفة مارك داديسة وفي وينانيسة مارك إنسان كضعيفة سوى ولاي سبحانه وتعالى أجوم كان وكياني قوة أيو يشي أن يرأي ونقضي سوق أيو ليه وسعن كرا وبودي كرا وأردي كرا مارتي مال أيو كسبن كرا مارتي علم أيو كسبن كرا وسعن كرا. لكن بعد فترة وحأرتي ساقفتي والضعيف ونقضي حالتي هو كل نقنانا بدقاتي صويرانا ضعفي سيا إيمانا أركتي في مقلتي في مارتي جودي في مارتي كالم أبانا عن قول أبانا إلى عنق يقوق الأمر. marka adiga fatrada ahayd waa fatra aad u yar marka kasbatid maartay wadada ilaahay ku taagan ilaahay ku karaameena marka awlaad baari ah oo ku gacan qabto oo ku gargaaro mujtamaci oo dhan inuu ku ixtiraamo oo ku gargaaro oo ku gacan qabto marka adduunka ayaa waxa ku yeelaysaa maartay tawaab caajil aakhir intaan gaarin marka qofkii asaga ayaa marka maartay daa'irada naftiisa kaliya u gargaara marka tiraay oo ilmihiisa u shaqeysana gadirig hadhow ilmaha naftiga iyaga ka hormaanaya oo xaqii ka leexanayo oo adiga marka waxa dhan aad soo shaqeynayso oo dhan marka hortaada ay ku baaba'ayaan oo hadhow marka maartay yani adduunkan ku waysid marka makaanada iyo waxyaabaha marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala hada u xirnaado ilaahay loo tooba keeno ilaahay markii maartay la noqdo adooman ilaahay oo maartay cibaadu raxmaan la noqdo ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariisiisa la helaa oo maartay ilaahay nagu manaysana durriya saalixa ونوما يسنى إله سبحانه وتعالى مالتي مجتمع صالحة ومالتي أدون فينا نمركع نكون جاركا. هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.